degmooyinka waaweyn ee Hilwa iyo Yaaqshiid ayaa laga cabsi qabaa qarax uusan geysanin shabaab inuu ka dhaco waxaana isku soo baxay dad shacab ah oo aad u tiro badan kuwaas oo durbaba dareemay khatarta isla markaana hadda ku banaan baxaya fagax isgoyska fagax ayay aad u dhooban yihiin dadkan oo qaylinaya laakiin waxa dhinaca kala socota rasaas ay tuurayaan ciidanka dawladda meesha oo qaraxda waatana nin ciidan ku jiro nin ciidan dadka ayaa dareensan khatar weyn inay ku soo wajahan tahay ooba si hordhac ay u arkeen maanta markii ay neef qabatoobeen gurigoodana ay ku jiri waayeen dadkan gobolka Banaadir ku nool gaar ahaan dhanka Yaaqshiid jooga ayaa sheegay in halista iyaga maanta soo wajahday ay gaari karto degmooyinka kale ee dariska ah isla markaana haddii uu dhaco qaraxan aysan markii ugu horreysay geysan doonin shabaabka uu noqon doono musiibo dad tiro badan ay ku dhintaan waa haddii aan si degdeg wax looga qabanin sidaa darteed waxaa codsanaynaa inaad fariinta gudbisid si markiiba maamulka gobolka Banaadir arrintan khatarta ah uu uga jawaabo halkani waa fagax waxa yaalo waa haamankaas ay u jeedin oo laga soo qaaday magaalada Muqdisho inteeda kale ka xada Daynile Hodan ilaa iyo Gubadley laga soo diiday ayaa halkan la soo dhigay dadka xaafadda degan ayaa khatar ugu jira disaster ama masiibo haddii dawladda federaalka arrintan wax ka qaban waa khatar weyn halkan waa magaalada Muqdisho waa gaar ahaan fagax xaafadda Jungle waa degmada Yaaqshiid ka tirsan waxaad u jeedaan waxaanoo gaas la soo dhoobay geerishada ku yaalo gaaska waxaana loo sheegay in laga soo bixiyay magaalada Muqdisho inteeda kaleete maxaa socda haddaba maanta waxaa fagax isugu soo baxay dadka markii guryahooda iyagoo iska jooga nolol maalmeedkooda iska wata mar hore ay ka war hereen inay neef qabatoobayaan neef qabatankaas ayaa ka dhashay haan weyn oo gaaska lagu keydiyo oo iskeed sida la sheegay dhulka intay uga fakatay maamulkii iska lahaa ee Somgas kadibna keentay in ay hawada raaco ama uu raaco gaaski arrintaas ayaa kadib dhalisay in dadka ay awoodi waayaan inay neefsadaan haamahan tirada badan oo kor u dhaafaya ilaa iyo 300 oo haan ayaa shirkadda Somgas la yiraahdo waxa ay keensatay garaash ku yaala fagax halkaas oo lagu keydiyo cadceedda oo kulul xirfadda maareynta oo aad mararka qaarkii u yaraan karta iyo khatarta ah in cadow uu ka faa'iideysto ayay dadka mar dheerba isha ku hayeen hase yeeshee maanta ayaa khatartii bilowgeedii ay la kowsadeen markii ilmahoodii iyaguba ay guriga ka soo baxsadeen waxay sheegeen gaaskan in hawada markii uu raacay dadka ay kari waayeen neef qaadashada kadibna waxay dhinaca kale istuseen in xitaa ay ka cabsi qabaan cadowga inta badan dhibaatooyinka geysta in halkan uu ka arka fursad wax yeelo weyn dhalin karta oo ay ku sheegeen haddii xitaa hal sigaar lagu dhex tuuro meesha oo meel fiidan ah oo ah u jeedin muuqaalkan inay ka dhalan karto masiibo aan horey loo arkin qarax aan weli horey loo arkin taasoo ay sheegeen in uu baabi'i karo guryo tiro badan nolosha dad badan galaafo karo sidoo kaleetana uu noqon karo masiibo aad u weyn halkan waa magaalada Muqdisho waa gaar ahaan fagax xaafadda Jungle waa degmada Yaaqshiid ka tirsan waxaad u jeedaan waxaanoo gaas la soo dhoobay geerishada ku yaalo gaaska waxaana loo sheegay in laga soo bixiyay magaalada Muqdisho inteeda kaleete halkan la soo dhigay dadka xaafadana maaragtay cabasho badan ka keeneen ilaa haddana wax laga qabanin dawladda Soomaaliya ha ogaato gaaskaas hadduu qarxo dhibaato inuu keeni karo inuu gaari karo ilaa bakaaraha inuu guuraan 3 degmo uu baabi'in karo kuma talagelin halkan la dhigo waxa loogu talagalay in magaalada banaankeeda la geeyo si loo sugo safetiga dadka dadweynaha shacabka ah hadda wuxuu dhex yaalaa magaalada dhexbartamaheeda dawladda waxaan ka codsanaynaa in arrintan cid walba qorsayso wax ka qabato inay soo gurmadaan aan ka codsanaynaa xaafadan halis bay ku jirtaa arrintaas dadka oo dareensan ayaa isxilqaan bulsho sameeyay soona banaan baxay iyagoo ku qaylinaya waa in laga qaada gaaskan bartamaha magaalada la soo dhex dhigay lana geeyaa meel banaanka ah oo khatar dadka aysan uga imaan karin ganacsigana uu ku nabadgeli karo hase yeeshee maamulka shirkaddan oo aan wax dhag jalaqa u siinin ayaa la aaminsan yahay inay durba adeegsadeen ciidankuwa dowladda ka tirsan kuwaas oo isla hadda aan la hadlayo dadka shacabka ah rasaas hoosta ugu dhigaya diidanna in ay bal khatarta ay ka digayaan ka sii digaan waxay rabaan ciidanka inay dadka caburiyaan oo aanay dadka shacabka ahi marnaba cabirin khatarta ay dareemayaan ee ah in gaaskan uu keeni karo waxyeelo aad u weyn
inta badan gaaskan guryaha ayaa looga faa'iidaystaa dadka ayaana ku karsada cuntada waa wax wanaagsan oo bulshada ay u baahan tahay hase yeeshee in lagu dhaxaayo meel garaasha oo furan oo khatar ay ka dhalan karto ama uu kaliya joogo hal nin oo waardiye ah ayay dadku istuseen inay tahay masiibo kale iyo dad lagu dul ciyaarayo waxay baaq u direen maamulka gobolka banaadir oo ay u sheegayaan in waxaan haddii ay waxyeelo ka dhalato inaanay iyagu damaanad qaadi karin khatartaas isla markaana ay ku dambeyn karto musiibadaas mid uun baraha bulshada dadka looga tacsiyeyo intay goorigoor tahayna waxay codsanayaan in loo kaco dadka shacabka ah oo wax laga qabto ma og tahay in dhakhtar shaafici aadan dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka faafahinta dheeriga kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqanaya ogeysiis waxaa imaanaya isbitaalka takhasusiga ah ee Muqdisho taariikhdu markay tahay 15 bisha January 2024 dhaqaatiir Hindi ah ana kamid ah dhaqaatiirta imaanaysa Dr. Sifaram oo ah dhakhtar ku takhasusay qaliimada guud iyo qaliimada burooyinka kansarka sidoo kale waxaa imanaya Dr. Arul Barkash oo ku takhasusay daaweynta gaaska dheefshiidka iyo kaamirooyinka caloosha soo booqo isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada Yaaqshiid gaar ahaan xaafadda Tawfiiq miisaanka dhuxusha ama wixii faahfaahin inta dheer nagala soo xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda